xisbiga mucaaradka wadani oo maanta u lahaa maalintiisii lixaad ololaha doorashada aqalka madaxtooyada Somaliland ayaa isu soo bax ballaaran ka sameeyay magaalada Burco. saaka aroortii hore ayay bilaabeen taageerayaasha tirada badan ee xisbiga wadani socod ay ku marayaan wadooyinka magaalada Burco, waxaana isugu soo urureen fagaaraha khudbadaha magaalada Burco ee loo yaqaan khayriyada, halkaas oo ay kala hadleen mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen kaaliyaha warbaahinta musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Muniir Axmed Cigaal, gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday, xildhibaan waabeeye iyo mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ee xisbiga wadani. sida sharafta leh ee qiimaha leh ee gobonimada leh ay isugu soo baxdeen idinkoo muujinaya inay miisaankiina aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa inaynu guulaysano in madaxweynaheenu noqdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. guushii waxayna uga haray dhowr casho inaynu wadno inagu cid inaga soconaysa oo aqoon-yahanna inaynu wadano. kulmiye wuxuu haystaa musharaxiin aan ka soconayn afar madaxweynaha soo maray Somaliland, afartu waxay lahaayeen dabeecad iyo dadraac leh, waxay ahaayeen afartu siyaasiyiin kornooyinkan dul qaadan karayaan maya afarta waxa dhigooda leh oo u dhigma Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. dhalinyarada xisbiga wadani ee dabaaldegaysa waxaan idinka codsanayaa marayna ammaanka ilaalisaan. gawaadhida aynu ku dabaaldegaynana ku dhagxan ku qaadan mayno. waa farxad in arko Burco midaysan. waxaa aragnaa in dareenka shacabka Somaliland yahay inay isbedel doonayaan. dumarka xisbiga wadani maanta wuxuu idin qabanayaa waxa aanay ku filanayn. Cabdiraxmaan Sootalka waxa uu yiri kelmadii bedeluu uu bedelay qof iyo waxaan loo jeedin dawna xisbiga wadani iyo taageerayaashiisa midnimaanu wax ku doonaynaa, horumar baanu wax ku doonaynaa. lacagtii amaaraha loo ururiyay lagu yidhaaho kaanadkii baa laydinkaga iibsanayaa, waa wax ceeba, wax laga xishoodo weeye. xisbiga wadani ha guulaysto. sidaad ogtihiin halka walaalayaal waynu ka sifeynay xisbigii kulmiye. waxaad ogtihiin inaanu laba olole ka soo xaarin khayriyada magaalada Burco iyadoo intaandaradiisu ay halkaa dhigtay taageerayaasha xisbiga wadanina ay sidii xaaladooda ahayd ay fagaarayaasha soo xadireen. waa inaynu farteena dhiibano. murashaxa Burco midaynaya, murashaxa Somaliland midaynaya, murashaxa ummadda isku wadaya. halka wasiiradii maalintii nabadgelyo ka faaniyeen ee aanu moodhadii iibiyey ninka dunyahan haystee dib jirtay habeenkii baaluhu durduurteen waxeeda doonto dadka inta weydiin imku kulmiye taageerayaashii leeyahay war taageerayaasheedii Ali Daahir Maxamed Boos, TV Universal, Burco.